Salaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Ninkan waxa uu bisadan caloosheeda ka dhaxelay wax aad u yaab badan. Haddaba intaynaan muuqaalka u gudgalin, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si dhiirigelin noogu noqoto una soo badino muuqaalada noocan oo kale ah. Mahadsanid. Mar kale ku soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan idin wadaagaynaa qiso aad u cajiib badan. Qisadan waxaa dhex martay nin faqiir ah iyo bisad. Waxaa jiray nin faqiir ah, ninkaasi oo si joogto ah u tukan jiray salaadihiisa, laakiin waxa uu ahaa nin faqiir ah. Naagtiisii ayaa waxay ku dhiirigelisay in uu aado dhanka iyo keynta si uu u soo guro xaabo, intaas kadibna uu u suuq geeyo si ay u helaan quutulyoomkooda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa uu u kalahay masaajidka si uu u soo dukado salaada subax. Salaadii markii uu ka soo baxay kadib, waxa uu soo qaatay qalabkiisii shaqada, waxa uuna soo aaday dhanka iyo keynta si uu u raadiyo xaabo, kadibna uu soo goosto si uu ugu iib geeyo suuqa. Intaas kadib waxa uu gudagalay inuu xaabadii guro. Markii uu gudagalay ayaa waxa uu arkay bisad aad u xanuunsanayd, calooshana aad u barartay. Waxa uuna fadhiistay agteedii asiga oo aad ugu murugoonaya arrinkaasi. Waxa uu bilaabay inuu su'aalo dhowr ah maskaxdiisa iska weydiiyo oo ah, bisadan maxaa ku dhacay? Caloosheeda maxaa kaga jiro? Intaas kadib waxa uu go'aansaday inuu xaafadiisii u qaato bisadan si uu u xanaaneeyo. Markii uu gurigiisii keenay oo ay aragtay xaaskiisii, aad ayay u qaylisay, waxayna ku tiri, ma waalan tahay adiga? Waxaad noo keenaysaa bisad xanuunsan, annagaba waxaan cunno ayaan la'nahay. Markaas kadib waxa uu ninkii dhibsaday weedha xaaskiisa, waxa uuna ku yidhi, xanuun iyo caafimaad gacan alle ay ku jiraan. Anigana damiirkayga waa uu ii diiday inaan bisadan miskiinta ah ka soo tago ilaa aan ka ogaado inay caafimaad qabto. Maalinkii labaad ayaa la gaaray. Ninkii waxa uu qaaday bisadii, waxa uuna u geeyey dhakhtar. Dhakhtarkii waxa uu bisadii ka qaaday dheecaan iyo dhiiggeedii, waxa uuna saaray iskaan. Waxa uuna dhakhtarkii ku yidhi, bisadan caloosheeda waxaa ku dhex jira wax aad u culays badan. Waa in lagu sameeyaa qaliin si aan uga soo saarno waxa caloosheeda ku dhex jira. Dhakhtarkii waxa uu qaliin ku sameeyey caloosha bisadii, waxa uuna ka helay shay aad u yaab badan. Waxa uuna caloosheeda ka helay bisad dahab ah oo weliba qadiimi ah. Aad ayuuna u yaabay. Markaas ayuu yidhi, subxaan allah. Intaas kadib ninkii faqiirka ahaa ayaa dhakhtarkii weydiiyey, dhakhtarow maxaad ka heshay caloosha bisada? Markaas ayuu dhakhtarkii ku yidhi, waxa aan ka helay adigaba haddii aan kuu sheego ma rumaysanaysid. Waxaa caloosheeda ka helay bisad dahab ah oo weliba qadiimi ah. Ninkii aad ayuu u yaabay. Markaas ayuu ninkii dhakhtarka ahaa weydiiyey, dhakhtarow ma noolaanaysaa bisadan? Markaas ayuu dhakhtarkii ku jawaabay, haa, insha allah. Ninkii waxa uu soo qaatay bisadii iyo dahabkii, waxa uuna ku laabtay gurigiisii. Markii ay xaaskiisa aragtay, waxa ay la soo booday, adigu ma waalan tahay? Wuu ka aamusay. Markaas ayay ku celisay, ma maqashid miya? Waxaan ku dhahay, adigu ma waalan tahay? Ninkii aad ayuu uga xumaaday xaaskiisa qaabka ay u dhaqmayso. Ninkii waxa uu soo qabsaday bisadiisii iyo kiishkii dahabka ugu jiray. Markaas ayuu iska galay qolkiisii, waxa uuna soo xirtay albaabka, wuuna fadhiistay si uu u fakiro, maxaad ku samaysaa bisadan? Maxaad ka samaysaa dahabkan? Waxa uu is yidhi, naagtayda ma doonayso bisadan. Intaas kadib xaaskiisii ayaa albaabka u soo garaacday, waxayna ku tiri, albaabka iga fur. Markaas ayuu ku yidhi, keligay inaan ahaado ayaan doonayaa. Naagtii ayaa isaga tagtay. Maalinkii ku xigay subaxdii ayuu ninkii waxa uu aaday meelaha dahabyada qadiimiga ah lagu iibiyo. Markaas ayuu u iibgeeyey bisadii dahabka ahayd. Waxa uuna arrinkaas yaab ku noqday ninkii dukaanka iibinayay. Waxa uuna la yaabay bisadan ka samaysan dahab qadiimi ah. Markaas ayaa ninkii weydiiyey, bisadan intee ka keentay? Ninkiina wuxuu ku yidhi, waxaan ka soo bixiyey caloosha bisadan dhexdeeda. Ninkii dahabka iibinayay waxa uu is yidhi, wartalow ninkan ma waalan yahay oo bisad dahab dhalayso intee ku aragnay? Arrinkani waa yaab. Markaas ayuu ninkii dahabka iibinayay ku yidhi, bisadan dahabka ah
waxaan kaa siinayaa malaayiin dollar. Intaas kadib waxa uu ka iibiyey ninkii, waxa uuna soo qaatay lacag aad u fara badan, waxa uuna u yimid gurigiisii. Waxaa arrinkii aad ula yaabay naagtiisii, waxayna ku tiri, intaan oo maal ah halkee ayaad ka keentay? Markaas ayaa waxa uu ku yidhi, shalay waxaad i dhahaysay adiga ma waalan tahay, bisad maskiin ah oo aan badbaadiyey darteed, maanta bisadaas darteed ayaan faqriga kaga baxnay. Naagtii aad ayay u oyday, waxayna ku tiri, subxaan allah, subxaana araasiq alcadiim. ninkan badbaadada uu badbaadiyey bisad darteed ayaa alle waxa uu ku arsaaqay maal adduun oo dhan. Markii ay raysatay kadib, bisadii ninkan aad ayuu u jeclaaday, xitaa waxa uu u wadan jiray meel kasta uu aadayo. Dulucda sheekadana waxay tahay, haddii aad wanaag u samayso shakhsi ama xayawaan, alle wuxuu kuu abaalmarinayaa intaad u samaysay in ka badan. Muuqaalkeena maantana intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Haddii aad dhamaysatay muuqaalka, like saar lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan. Mahadsanid.